ciidiinni baad joogtaan, ciidiinni baad tegaysaan, guryihiinni baad caawu hooyanaysaan, kismaayona ma maraysaan, xamaraa ka degaysiin. محمد آدم أحمد كتب جنتنا سبن إلى هذا مدحتوية oo ku sugan hadda garoonka Raaskabooni waa nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dagaal baan ku qabtay waa nabad qabnaa si fiican bay noo soo dhaweeyeen ciidan Soomaaliyeed xil Soomaaliyeed baan soo dhaweeyay maanta waa nabad qabnaa wixii dhintayna Ilaahay u naxariisto wixii dhaawacana Allah caafiyo wixii dhaawacana waa la daweeyay wixii dhintayna way dhinteen inta kale waa nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay ma iskale laba xdig le Adnaan Umar Maxamed lambarku waa 24 لواتن إلهو واحد لواتن اللي مقارسين نماذج عبد المقدسين في الدقيقة وإن شاء الله عيدا كرم على كتفنا. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وياي عبد الشكور مرسل محمد آذن كترسن قلت 77 إلى عدد مدحتويد أنا كوصدن يسد حقفها ميش كجوجنا سفي عم بان نور رقمي وإحنا نور من ملا دجال بان نور غطي بالله توفيق. iyo waxa weeye qaybaha kala duwan ee daraawiishta ciidamada Jubbaland waxay u maareeyeen iyo shacabka Jubbaland iyo dawladda Jubbaland isku duuban sidii ugu fududayd ee musiibada loo maareeyay lahaa ay u maareeyeen waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye dawladda Soomaaliya inay inta ku ekayso oo ay joojiso khalkhalka ay hadda wali ka wado geda ka wado meel badan ay ka wado ee dawladda Jubbaland deegaamada nabadda ah ee maamulada ku jiray lacagaha loo qaybinayo ee dadka Soomaaliyeed iska horkeenayo bifadlikum madaxweyne xasan sheekh maxamuud shabaab baa u baahan wadanka in la xoreeyo ciidamada Afrikaan ah jooga wadanka waxa weeye in maanta iyadoo ciidamada Soomaaliyeed oo la dagaalamaya shabaab oo xoog gaale ay joogaan oo meel walba jooga in waxa weeye la isku mashquuliyay ciidamada AMISOMna waxa weeye la yiraahdo noo kaale wadanka noo difaac kaalena ilaaliyo shabaab la dagaalgala inama qabato waxaan ugu haboona ma aha waxa hawshan fuliyay waxa weeye amniga deegaanka ku soo celiyay xabada waxa weeye sameeyay dagaalka bilaabay diyaaradaha keenay dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka anaga hor soconay magaalada nidaan u soo soconay deegaanka anaga u soo soconay ciidanku inay yimaadaan oo ay walaalahooda la falgalaan halkan jooga oo nu la hadallo oo dhalinyaro Soomaaliyeed baatiin waa la inay soo khalday xabad ridina bay ahayd laakiin iyaga xabadna nagu bilaabay iyagoo adeegsanaya qalabkii iyo ciidankii Soomaaliya loogu talagalay ee Soomaaliya aan anagu wax ku lahayn ee Jubbaland wax ku lahayd iyadoo wax weey la adeegsanay ay nagu bilaabeen laakiin sida ugu fududayd naftoodana lagu badbaadin lahaa xabad badan ay ku dhiman lahayn aysan waxa weey ku badbaadin lahayn ayaa arintaasi loo maareeyay waxaan ugu baaqaynaa waxa weey Soomaali nabad waxaan ugu baaqaynaa wada jir waxaan ahay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaliya waxaan u imaaday Kamboni maadaama taliyaha qaybta ahay dhulka ay qaybtu ay shaqadeedu ay tahay Jubbaland State in wixii dhacay muxuu ku dhacay masax buu ahaa ma khalad buu ahaa ka hadli maayo laano ciidan baan ahay ciidankana siyaasadda waa ka xaraan kaliya dhalinyaradaas Soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidan ka tirsan ilaa hadda waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii meeshan ku dhacay waxa weeye lagu qabtay inaan la wareego xaafadahoodii iyo guryahoodiina aan gaarsiiyo si nabad ah inta kaliya aan u imaaday wixii kale oo dhan wax ii yaala ma aniga waan ku faraxsanahay markay inaan idin imaado oo idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Ilaahay ha u boodho caafimaad ha siiyo